ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada agaasimaha guud ee hay'adda agaasimo waaxidada iyo saraakiisha kale sidoo kale waxaan salaamayaa guddida ururka diwa iyo dhammaan ganacsatada dalka keena dawooyinka oo harkacayso diwa ururka diwa iyo gudoomiyaheeda Yuusuf dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad baan maanta idiga mahad celinayaa ajiibidda soo ajiibteen inaad noo timaadaan kulankan aynu ku wada hadalno aynu ku wada tashano kadibna go'aan aynu ka soo saarno hay'addu way karaysay in go'aanada ay soo saartay inay halka media ka sheegto laakiinse wax kasta wuxuu ku fiican in laga wada tashado la isku yeero la isla fahmo si aqoon looga wada hadlo intii way noo dhacday talooyinkii badnaana waanu weeleenaynaa haddii la yiraahdo iyo xogihii aynu kala helnay muhiimaddu waxa weeyaan sayn la socono waxa furmay shaybaadkii qaranka ayaa imika hawshiisii furantay oo aynu qaban doonaa dhammaan dawo kasta iyo cunto iyo kasmaati kasta oo waddanka soo galaya la baari doono oo aan dib u dhici doonin insha Allah waxaan la baarinay dalka soo galaan marka waxa jira qodobooyin loo baahan yahay waxyaabaha loo baahan yahay kombaniyada dalka soo degaya soo dejiya dawooyinka looga baahan yahay ayaanu maanta soo saarnay go'aankeedii kowna waxaa noqon doonaa inay hesho company kasta inuu soo qaato alaabta markuu la soo dego inuu keeno certificate of origin-ka oo ah wadanka Chamber of Commerce ayaa bixiya wadamada laga keenayo marka muhiimadeeduna wax weeyaan lagu kala ogaado company-gani meeshuu ka soo qaatay alaabtan cid uu ka soo iibsaday inay tahay company sharciyeysan waddankaaga sharciyeysan iyo inaanay ahayn sidoo kale waxa looga baahan yahay parking list-kii iyo bill of lading-kii ama airways bill-ka ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay certificate of confirmative-kii iyaduna COC-gii iyadana taana waxaa looga baahan yahay iyaduna in la soo baaray oo standardskii iyo analysiskii ay la socdaan warshadaas oo samaysay alaabta dawooyinkaas iyo sidoo kale inay ka ilaaliyaan ganacsatada alaabta aan tayada lahayn bay ka soo ilaalin doontaa marka la keeno dekada ama airport-ka kadib hadana la baari doonaa oo lagu sameyn doonaa inspection-kii kadibna waxa la geyn doonaa shaybaadhka qaranka oo iyadoo wixii oo dhan la soo diyaariyay dib hadana loo check-garayn doono haddii alla idmo inahaas ayaa muhiimad u ahayd sidoo kale waxaa ku jiray qodobka ahaa isna muhiimka ahaa alaabaha dawooyinka u baahan qaboojiyayaasha in qasab ay tahay maanta laga bilaabo inaan waddanka la keeni doonin dawooyinka u baahan qaboojiyayaasha oo ku jira kontiinarada la yiraahdo dry containerska laakiin waa inay lagu keenaa kuwii loogu talagalay lahaa qaboojiyayaasha taas baa iyaduna go'aamada ka mid ah ujeedka laga leeyahayna waxa weeyaan in dawo bad qabta ay helaan shacbiga Soomaaliland oo mas'uuliyada naga saaran tahay dawladkayagii iyo anagii baan ku noolnahay oo aan u baahannahay dawo tayo leh sida awadeed baan ganacsatadana ka ilaalinaa culays khaldan oo soo gaadha oo dekada intaan ugu qabano aanu nidhaahno waa celis anaga waxba u sii sheegin marka kulankan wuxuu daaran yahay inaanu ay sii ogaato company kastaaba laga bilaabo maanta haddii la yiraahdo January laga bilaabo alaabta lala soo degi doono ayuu go'aan ku noqon doonaa inaan la soo degi doonin alaab aan wadan COC-gii iyo qodobadan kale aynu sheegnay dhamaantood laakiin wixii imika idii maqan in la idii tixgelin doono laakiin la baari doono shaybaadka la marin doono oo la hubin doono mas'uuliyadda naga saaran waxa weeyaan inaanu ilaalino ganacsatada oo aanu ilaalino inaanay ganacsatadeedii yaanay wax bilaataya la soo qiyaamayn oo aanu wixii aqoon iyo wixii waaya aragnimo ah hay'adda uga baahan inaanu siino sidoo kale inaanu ilaalino badqabka bulshadeeda
oo aan shacbigayga loo gelin ama loo keenin dawooyin aan tayo lahayn oo aan waxba u tareen caafimaadka haddii dee wixii wax weeyaan dawooyinkii u baahnaa sharoobooyinkii iyo dawooyinkii u baahnaa macaankii u baahnaa qaboojiyaasha aan lagu keenin qaboojiyaashii dekadiina meeshii qaboojinaysa lagu samayn dee wax bilaataya unbuu qofkii waqtigii kaga lumi doonaa marka mas-uuliyaddaasoo na saaran baynu insha allah dhammaanteen gacmaha isqabsan doonaa waxaan u mahad celinayaa ururka diwa oo runtii hay-adda si fiican ula shaqeeya mas-uuliyad badanna runtii isa saaray isagu wax badanna saxay oo horeba u saxa markaa taa waxaan leeyahay diwa dadaalka halka ka wadaan kasii wada annaguna waan garab taagannahay wixii khalad ah ee la keenayo dalkana waxa weeyaan mas-uuliyad annaga inaga saaran tahay haddii la yidhaahdo innaga gacan biro ku qaban doona ogolaana mayno in la keeno agab ama haddii la yidhahdo dawooyin aan quality-geedu standardkii caalamiga ahaa iyo kii dalka u yaalay midna waafaqsanayn haddii la yidhaahdo waxaynu isku ognahay insha allah barbarkay ka baxda waa bakayla qaleen